أنام الله إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام أو هجرتم يا حبيبي فعلى الدنيا السلام الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيع كرم الله وأتى النصر من الله يا له شهر عظيم وكريم كرم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walbaad noo dhegeysanaysaanba saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo aan maanta kusoo qaadan doono iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli oo kamid ah iskuulada ugu faca weyn ee ku yaalo magaalada Muqdisho. waxaana wareysi la yeeshay maamulka iskuulkaasi anigoona wax ka weydiiyay waxbarashada iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli. sidoo kale waxaan wareysi la yeeshay mid kamid ah macallimiinta wax ka dhigay iskuulkaasi anagoona qeybaha dambe ee barnaamijka aan wareysi la yeeshay qaar kamid ah ardayda wax ka barata iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli. haddaba gabi ahaan barnaamijka waxbarashada waxaan kusoo qaadan doonaa iskuulka Rabiicul Ahli. dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya farsamayaqaan sare Siid Cali Cosoble anigoo Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud. saaxiibayaal barnaamijka ayaa nila socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijka waxbarashada. وهاجا dhegeystayaal aan u guda galno qeybaha hore ee barnaamijka waxbarashada. ugu horeyn waxaan wareysi la yeeshay maamulka iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli. maxamed axmed cabdulle kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada. waa ku dhawahay ustaad Cabdiraxmaan. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaa waqtigaada qaaliga ah ee aan noo soo hortay saakay inaan ka qayb galno barnaamijka waxbarashada ee dugsiga. waxaan ku leenahay kusoo dhawow iskuulka Rabiicul Ahli gacmo furan. waa tahay ustaad waxaa tahay maamulka iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli. bal marka hore waxaad faahfaahin ka bixisaa aasaasidda iskuulka Rabiicul Ahli. iskuulka Rabiicul Ahli waxaa la aasaasay sanadkii 2015 bilowgiisii. magaca sida aad u jeedidba waa Rabiic oo gu ah iyo ahli oo deegaan ah. waxaa la yiraahdaa gugi deegaanka ayaa la yiraahdaa Soomaaligiisa ama macnihiisa. waxyaabaha aan u aasaasnay wuxuu ahaa maadaama guga uu yahay xilli iska barwaaqo ah iskuulka inuu noqdo iskuul u soo baxay deegaanka kaane dhanka barwaaqada ahay waxbarasho ugu soo kordhiyay waalidiinta iyo la jecel ubadkooda in ay horumar ka gaaraan dhanka waxbarashada lana dhiso arday mustaqbal wanaagsan leh asna is anfaca mustaqbalka. waa tahay bal haddii sheegtaa iskuulkan marxalado kala duwan ayuu soo maray intii uu aasaasanaa iyo haatan uu iskuulku yahay mid shaqeynayo. marxaladahaasi uu soo maray iyo inta dufco ee ka qalin jabisay iyo weliba xiriirka aad la leedihiin jaamacadaha. iskuulka marxalada kala duwan ayuu soo maray laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan hadafka iyo mustaqbalka la leeyahay. wax markii la aasaasaa haddaan ula jeedo ka lahayn ulajeedo fog aad ka lahayn waa ogtahay culayska ay leedahay. iskuulka wuxuu shaqeynayay 2015 bilowgii ilaa sanadka la joogo 2 dafca ayaa ka baxday dugsiga sare. dafcadii saddexaad ayaa hadda socoto. jaamacadaha waxaan la leenahay xiriir aad u wanaagsan. haatan aan kula hadlaa iskuulka waxaa taalo minxa 220 arday ah ayaa taalo. ardayda iskuulka ka qalin jibisay 3 jibaar ugu soo 5 jibaar ugu soo 2 jibaarme. mar walbana waxaan nagala dhaxeeyaa xiriir aad u wanaagsan oo ah arday walba aan dirno xitaa muhiim ah inuu iskuulkeena dhigto laakiin xitaa ardaygaan u dirno saaxiibtinimo iyo deegaan ahaan warqadan siina inuu jaamacaddu ku tago toos loogu aqbalo. shaqada aan haynana waxa shaqo iskaashi oo dhanka waxbarashada anaga waxaan joogaa waxbarashada asaasiga ah ayagana waxay joogaan waxbarashada sare ayay joogaan.
waatay ustaadii iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli oo kamid ah iskuulada ku yaal magaalada Muqdisho waxa ku yaal iskuulo fara badan ka maamul ahaan maxaad is leedahay iskuulada ku yaal magaalada Muqdisho waad uga duwantihiin amba waad uga firfircoontihiin ustaad horta waxaan iskuul wada joognaa majaal waxbarasho oo ah waxbarashada aasaasiga ah iyo waxbarashada sanawiga waxaan anaga sameeynaa ka maamul ahaan in ardada maado walba ee culays ku qabato ama aan ku dhaana ardayga uu ku liitaa inaan wax maalmo gooni inaan u sameeyno maadooyinkaas ardada loogu celiyo siiba ardada shahaadiga ah maalmaha khamiista iyo jimcada ah xoogga la saaro si maado walba ay ama ku liitaan ama markaa imtixaanka bilaha marka la galo bil walba imtixaanka la qaado qiimeynta ka soo baxdo in la yiraahdo maado hebel ardayga waxa ka dhiman saacad hebel ha imaado saacad hebelna laga kaabo lagula xisaabtamo sidii maalmaha caadiga oo iskuulka dhiganay si loo xisaabtamo halkaas ayaan xoogga ka saarnaa waa tahay waalidiin fara badan ayaa dhageysanaya barnaamijka waxbarashada waxaa jira waalidiin caruurtooda shanta maalin ay u dhigtaan dugsi quraan kariim oo jaanis leh jimcaha khamiista oo kale ka maamul ahaan dadkaasi jaanis ma siisay oo jimcaha khamiis iskuulka mu fureen maalmaha khamiis jimcada ah waxayba kamid tahay waxyaabaha aan xoogga saarno waxaan ugu talagalnay ardada dugsileeyda ah ee maalmaha caadiga ah waxbarasho aan jaanis u helaynin ee dugsiga quraan kariimka oo ku dhagan yahay taas waxaan sameeynay barnaamij la yiraahdo diyaarinta ardada aan fursad u helin maalmaha caadiga ah waxbarashada halkaas ayaa lagu diyaariyaa waxa loo dhigaa maadooyinka lagu qaato dugsiga hoose ka soo bilow fasalka koobaad geey fasalka afraad markay ka gudbaan ayaan haddana fasalka shanaad maadooyinka lagu qaado lahaa ay toos u dhigtaan meesha waxaa ka soo baxda arday asoo dugsigiisa dhigana markuu dugsiga ka soo wareego galaas fiican tago sidaas awgeed waa halka fursad aan leenahay waalidiinta waa idin haynaa ardadiina maalmaha caadiga waxaa idin bartaan khamiista iyo jimcadana waa ladin diyaarinaa dugsigana gacmo furan kusoo dhawaada iskuulka waa iskuulkii deegaanka waa tahay ugu dambeyn maamule maadaama aad tahay maamulka iskuulka Rabiicul Ahli bal waxaad waalidiinta kula talinayso iyo waliba qaar kamid ah dadka aan wax baran ee xilligan dhageysanaya barnaamijka waxbarashada waxbarashada talada aan siinahay waalidiinta waxay tahay waalidow mustaqbalka ardayga aad dhashay ayuu biri ku anfaca maadaama ardaygaas oo yahay ubixii biri la fiirsan lahaa maadaama uu yahay adna juhdi iyo lacag iyo waqti ee kaaga bixi in ardayga markasta lala socdo imaashaha dugsiga ka warqabka waxbarashadiisa iyo meel walba oo ku liito inaad ogaa kartid sababta waxay tahay anaga ardayda waxyaaba ingala joogaan waa saacado kooban waa 5 saac 4 saac wax intaas ilaa 6 saac inta ay iskuulka joogaan waxa ka badan inta ay banaanka joogaan saaxiibka iskuulka ay ku leeyihiin waxa ka badan saaxiibka ay banaanka ku leeyihiin saas awgeed in laga warqabo ee waalidka iyo ardayga ay isku xirnaadaan waalidku ardaygiisa uu ka warqabo waalidka iyo maamulka iska warqabaan macalinka iyo maamulka ay iska warqabaan si hawsha meeshaas ka soo baxdo ay noqoto hawl aad u fiican mustaqbalkana lagu guuleysto hadduu Ilaahayna gaarsiiyo Abubakar Macalin Xasan kusoo dhaw barnaamijka waxbarashada ما شاء الله كدوهي aad ma santiin runtii idin ka mahad celinaa booqashada soo booqateen runtii waana ku mahadsantiin insha Allah waa tahay Abubakar waxaad ka mid tahay macallimiinta wax ka dhiga iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli bal waxaad marka hore sharaxaad ka bixisaa xirfadan macallinimo imise sano ayaad ku shaqeynaysaa waa mahadsantaa horta xirfada macallimadu waa xirfad iska adag in muddana ku shaqeynayay qiyaasa 2009 soo bilaabay maanta 2000 la joogo 22 ee gabagaba tahay runtii intaas waan ku jiray waxyaabo badan oo runtii bulshada waa u faa'iideeyay waxyaabana wali ay dhiman yihiin laakiin waa runtii ku faraxsanahay muddadaas aan ummadda u adeegayo waa tahay haatan waxaad ka mid tahay macallimiinta wax ka dhiga iskuulka Rabiicul Ahli bal waxaad sheegtaa qaabkaad ardayda ula tacaamusho xilliga wax u dhigaysid وما سنتين horta ardada marka la macaamilayo waa kala duwan yihiin runtii fasalada kala duwan oo sida loo macaamilo dugsiga sare loo macaamilo dugsiga dhexe sida dugsiga dhexe loo macaamilo dugsiga hoose loo macaamilo fasalka gudihiisa ardaydu kala duwanaa karaan
laakiin si guud waxaa tarbiyada u taqaano furuuqul fardiya in la ilaaliyo kala duwanaashada ardada taas ugu muhiimsan ardaygu midba si uu fikiraan runtii marka macalintiina waxa laga rabaa maskaxdaas fara badan oo fikiraysa inaad runtii u qaybisid runtii ra'yigaaga marka macalinka see xirfadiisa ku xiran tahay laakiin si guud markii loo eego la macaamilka ardada waa in la ilaaliyo furuuq fardiya waatahay bal waxaad ii sheegtaa maadooyinka aad ka dhigto iskuulkan maadooyinka aan dhigo maadada tarbiyada iyo carabiga aan dhigaa taasana in muddo dhigaa runtii waana ku faraxsanahay inaan laba maado oo runtii diinta islaamka lagu aan dhigaayo gaar ahaan dhaqanka islaamka xiriir weyn la leh runtii waxaa la sheegaa tarbiyada carabiga ardadu aad u necab yihiin laakiin aniga runtii intaan dhigayay waxaan ku guuleystay inaan jeclaysiiyo labas maado ay noqdaan maadooyinka ay ugu jecel yihiin yacni maadooyinka iskuulka ay ka qaataan macalin kastana xirfadiisa doo isticmaalo runtii wuu jeclaysiin karaa labas maado waa runtii maado aad u qiimo badan tarbiyada carabiga sidoo kale marka waa ku guuleystay waana mahadsantihiin waatahay ustaad xirfadan macalinimo inaad ku sii shaqayso hadafkaagu ma yahay wallaahi horta macalinimada waxay carabtu dhahdaa mihna shaaqa runtii waa shaqo dhib badan laakiin waxaa ogaataa macalinimada waa dad la soo saaro runtii wax ka qiimo badan ma jiraan in dad la soo saaro marka qofku in muddo macalin si anoo kale oo arko kumanaan kun oo runtii macalin u yahay oo bulshada dhex galeen oo meel walba taagan doorku ku farxa marka runtii macalinimada waa shay aad u qiimo badan waa iska dhib badan tahay sax laakiin runtii in dad la soo saaro waa wax qiimo badan runtii waan ku faraxsanahay inta cimriga ka dhimanay inaan dad wax sii baro ayaan runtii go'aansada waana ku shaqeynaa insha Allah waana ilaahina ila garab insha Allah waatahay ustaad ugu dambeyn waalidiin fara badan ayaa dhageysanaya barnaamijka waxbarashada aadna waxaad ka mid tahay macallimiinta wax ka dhiga iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli ka macal ahaan maxaad waalidiintaas ku oranayd la waalidiinta waxaan leeyahay hal qodob runtii ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan fariintan halkan ugu gudbiyo taasoo runtii isku xirnaanta waalidkii iskuulku inay muhiim tahay gaar ahaan hadda zamankan lagu jiro runtii oo magaaladina aad u sii balaaranayso bulshadii aad u sii balaaranayso waxyaabo runtii social media arday dib ku hayaan marka waalidka waxaan leeyahay waalidu iskuulka ku xirnaaw waatahay walaal marka hore adigoo magacaaga ku bilaabay bismillaahi raxmaani raxiim magacay waa Said Ali Maxamed Axmed dhigto iskuulka Rabiicul Ahli Primary and Secondary School waxaan ahay galaaska F2 waatahay waxaad noo sheegtaa bal iskuulkan markaad ku soo biireysay fasalkaad ahayd aad baad mahadsan tahay iskuulkan markaan ku soo biiray waxaa ka bilaabay galaas 6 ka bilaabay dabcan ilaa haddana waan dhigtaa waatahay ardayda iskuulka halka uu ku yaalo degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda Jungal miyaad degan tahay mase meelaha ka fog iskuulka ayaad uga timaadaa waxaa ka imaadaa yani waxaa ka imaadaa kaarana ka imaadaa qaybta yani masaajidka Turkiga jamhuuriyadda oo taqaaninba marka dhankaas ka soo lagaa dabcan waa gaarina ma lahan laakiin waa waqtigeeda ku xisaabtama waatahay bal waxaad ii sheegtaa iskuulka hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli oo aad dhigato waliba fasalkaad dhigato waxaad ka tahay iyo maadooyinkaad qaadato kuwaad ugu jeceshaa aad baa mahadsan tahay fasalka dhigto horta yani waxaa ka hay guddi iyo yani kaab galaas ku xigeen dabcan sida hadda jecel inaan noqdo guddiga iskuulka guud yani maadooyinka dhigtan dhowr maado oo iskuul dhex jiro 12 maado dhigtaa dabcan maadaha gaar nacba ma jirto laakiin waxaa jirta maada yani si qaas ah officer si maadooyinka tarbiyada iyo carabiga yani ka sheekeyna aad u jecelahay iyo Soomaaliga iyo maadooyinka dabcan fudfudud oo dabcan wadankayga in wax ugu tara aan jecelahay waatahay waxaad ii sheegtaa fasalkaad dhigato form 2 ardayda qaabka iskugu xiran yihiin mitiin arday isku xiran oo iska warqaba oo xilliyada imtixaanaadka oo kale wax isla muraajiciya su'aalaha isweydiiya mitiin arday isku xiran aad mahadsan tahay horta maxaa lahaa markaa tahay hogaamiye Amerika aragtay inaa macna wadan ah hogaamisto inaa horta juhdi bixisa dabcan waanahay dad isku xiran waxaanahay dad jecel inay yani wadanka wax ka bedelaan waxaanahay dad jecel gaar ahaan iskuulka inay saameeyaan inaa yani markay iskuulka baxaan iskuulka ay saameeyaan dabcan waanahay dad aad isugu xiran oo waliba aad yani iskuulka ugu tilmaaman waatahay iskuulka markaad dhameyso mustaqbalka maxaa jeceshahay inaad barato
aada maasantahay horta waxaan ahaa ani businessman oo dabcan hadda waa shaqaystaa yani gelina waa shaqaystaa gelina waxbaa bartaa saasay tahayna waxaa jeclahay in aniga wadankii waqtigii ugu badan wadankii wax ku saameeyo yani dhalinyarada wadanka inay ka baxaan rabaan aad u saameeyo in wadanka waxtar leeyahay adrensiyo markay waa tahay walaal marka hore adigoo magacaa ku bilaabay magacayga waa Leila Ismaan Maxamuud waxaan dhigtaa galaaska 8aad waxaan ugu faraxsanahay juhdigii macallimiinta igu soo hamiyay inay soo gaarsiiyaan heerkan waxaan aad fasalka 8aad waxaan rajeynayaa inaan kasii gudbo insha Allah waa tahay iskuulkan hoose dhexe sare ee Rabiicul Ahli bal waxaad ii sheegtaa ardayda u dhow miyaad ka mid tahay mise meel fog ka timaada may ardayda u dhow ka mid ah fasalkaad dhigato waxaad ii sheegtaa ardayda ma isku xiran tihiin oo wax misla barataan oo arday isku xiran ma tihiin dabcan haa waa isla barnaa maadooyinka su'aalaha sidoo kale iskala shaqaysanaa waa tahay walaal marka hore adigoo magacaa ku bilaabay Xanaan Ciise Cali dhigato iskuulka Rabiicul Ahli ahna fasalka form 4 waa tahay waxaad ii sheegtaa iskuulkan markaad ku soo biireysay fasalkaadeed waxaa ku soo biiray anoo 8aad ka soo baxay form 1 iskuulkan ka bilaabay waa tahay bal waxaad ii sheegtaa iskuulkan haatan aad dhigato maadooyin dhowr ayaa lagu dhigaa bal maadooyinka aad dhigato kuwaad ugu jeceshahay waxaa ugu jeclahay maadada taariikhda maadada biologiga iyo maadada physics-ka waa tahay iskuulka halka uu ku yaalo ee degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafadda Jungal agtiisa miyaad degan tahay mise meel fog uga timaada waxaa u imaadaa suuq bacaad waliba Ruxamol waa tahay maxaad jeceshahay mustaqbalka inaad barato iskuulka markaad dhamayso public health